بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii iyo xogihii ugu xasaassanaa inaga soo gaaray Soomaaliya qodobada aan idin hayana waxa kamid noqonaya Shiinaha iyo Ruushka oo la saftay dawladda federaalka Soomaaliya kana digay in la farageliyo doorashada Soomaaliya qodobada sidoo kale aan idin hayo waxa kamid noqonaya xeer ilaalinta qaranka oo xirtay kiis dacwadeedkii loo haystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan senator Faroole oo weerar culus ku qaaday maamul goboleedyada la safan dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay shirka Afisiyoni iyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay sababta uu u baaqday shirkaasi dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dishay sargaal muhiim ah oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal ku maqli doontaan xogihii ugu xasaassanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya ee waqti wacan saaxiibayaal watahay haddii aan ku bilaabo labada dawladood ee Shiinaha iyo Ruushka oo kamid ah shanta dawladood ee awood ugu sareysa ku dhaxla golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka hor imaadeen talaabo uu golahu ammaanku si toos ah ugu faragelinayo doorashada Soomaaliya haddii xal laga waayo hogaamiyaasha Soomaalida beesha caalamka ayaana dhawaan waxa ay sheegtay in si toos ah ay u canaqabateen doonto ciddii ka soo horjeesata doorashada Soomaaliya soo jeedinta in la farageliyo doorashada Soomaaliya oo ka timid Mareykanka iyo Ingiriiska waxa si cad u diiday Shiinaha iyo Ruushka oo sheegay in ay habboon tahay Soomaaliya oo maanta markaasi ay ka jirto dawlad rasmi ah in aan la faragelin siyaasadeeda arrimaha gudaha sida arinta doorashada loogana dambeeyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xalka gaarista khilaafka imika taagan ee doorashooyinka go'aankan ay qaateen dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa u muuqda mid taageeraya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo horay uga digay in beesha caalamku ay markaasi faragelin ku sameeyso siyaasadda gudaha Soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole kana mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo shirarka looga hadlayo arrimaha doorashada ee ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho Faroole ayaa waxa uu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo shirka Afisiyoni waxana uu taageero weyn u muujiyay Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo mowqif adag ka taagan arrimaha taagan waxana uu sheegay inay sharci ku taagan yihiin labadaasi mas'uul Faroole wuxuu sidoo kale maamulada taageersan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tilmaamay kuwa ku tiirsan Muqdisho ciidan iyo sidoo kale dhaqaale intaba madaxweynihii hore ee maamulka Puntland haatan kamid ah senatarada aqalka sare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in cidda kaliya ee sharciyad markaasi heysata ay tahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inta kalena ay markaasi ku joogan qaraar ay markaasi doorashada ku galayaan shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee Afisiyoni ayaa mar kale maanta hakad la geliyay iyadoo markaasi la sheegay in uu dib u furmi doono maalinta Arbacada oo barita ku beegan warkan ayaa waxa shaaciyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka Cabdirashiid ayaa baaqashada shirka maanta waxa uu ku sifeeyay in uu ka maqan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo shalay safar degdeg ah markaasi ku gaaray magaalada Dhuusamareeb shirkan oo looga hadlayay ajandaha shirka doorashada ayaa hakad la geliyay kadib markii maalintii labaad uu dhacay isla markaana uu soo dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayo ee ku aadan ajandaha shirka waxaana qorshuhu uu ahaa in dib loo bilaabo maanta wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intii markaasi ay socdeen kulamadii ugu dambeeyay uu diiday dhammaan qodobadii ay wateen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo markaasi ay doonayeen in ajandaha shirka wada tashi lagu wada markaasi saaro hal qodob oo shirkaas lagu wada qayb galo waxa qodobadaasi kamid ahaa yareenta awoodaha madaxweynaha ee xilka markaasi uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
weerarkii 19 Febraayo lagu qaaday dibadbaxayaal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo in la ballaariyo ka qaybgalka shirkaasi. Afayeenka ayaa dhinaca kale waxa uu ka dalbaday madaxda maamul goboleedyada in wax shuruud ah aan lagu xirin fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxdu ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. Heshiiskii 17 Sebtembar oo baarlamaankuna ay ansixiyeen. Shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa ajandaha doorashada maalinta Arbacada haddii madaxdaasi ay si wadajir ah uga soo wada qayb galaan. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay howlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab isla markaana kooxda u qaabilsanaa dhanka warfaafinta ninkaasi oo magaciisa lagu soo koobay Xuseen Ganay. Saraakiisha militariga Soomaaliya waxa ay sheegeen in sargaalka la dilay oo markaasi Al-Shabaab muhiim u ahaa isla markaana oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta u qaabilsan warfaafinta. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkaasi lagu dhaawacay ilaa iyo 15 dagaalamo oo la socotay sargaalkaasi kuwaas oo qaarkood u dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray wararkaasi. weli ma jirto hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi oo guulo ay markaasi ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. labadii maalin ee ugu dambeeyay ayaa waxa gobolka Shabeellaha Hoose ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoogan oo markaasi dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex marayay gobolka Shabeellaha Hoose. xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaa soo xiray kiis dacwadeedka loo haystay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaas oo dhawaan la heshiiyay dowladda federaalka Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka lana ogeysiiyay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in markii la dhageystay tala soo jeedinta baaraha iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha ee kiiska gacanta ku hayay qodobada sharciga ah ee markaas ay u cuskadeen tala soo jeedintooda iyo danta guud ee cadaaladda laga leeyahay la xiriirtay kiiska Cabdirashiid Janan. dhinaca kale maxkamadda gobolka Banaadir oo ka jawaabaysay qoraalka xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaa aqbashay dalabka xeer ilaalinta qaranka ee xiritaanka kiis dacwadeedkii loo haystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa horay markaas uga dhaxeeyay khilaaf xoogan balse uu dhawaan la heshiiyay dowladda Soomaaliya waana markii labaad oo markaasi la xiriirto kiiska dacwadda waxaana dadka arrimaha siyaasadda ka hadla ay sheegayaan in awalba dacwaddaas ay quseysay khilaafka u dhaxeeyay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan waa naga saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay iyo xogihii ugu xasaassanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen Bahda TV.